Shantayow heesaha ma dhageysataa? أنا ما أنت هذا ربو قف كميدة ضد حمانت سوق بيو برام شدود إنها كهذا وحواجب وحمانت إنه سوق جستو وأوجان كرا شيقة وحكو أوجان كرا فاست إنه هيت سوق جستو ما نتيه كرا أنا جمد دقيسن وايو حنا لودي كرين أنا دقيسن كم هالي كرا الشيخ واحد جرى نجيبه كويدي أو هيد الشيخ شنتاي مقالة وكهلا دباتة وكهلا isagoo soo daawan sidee ugu suurta gashaa inuu ka hadlo hadduuna munkarka soo ogaan kama hadli kari waa saxo inuu muslim aan ahay waayilna aan ahay wax inaan hagaajiyana aan doonayo wixii waa inaan soo hubiyaa walaalow sheekh Shantayow Allah subhanahu wa ta'ala hortiisa markaa tagto oo lagugu qabsado ilaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala heesaha ayuu quraanka ku xarimaye ma waxaad dhihi doontaa ilaahow heesaha waxaan u dhageysanayay si aan reaction oga bixiyo sheekh waxaan rabay inaan ku weydiiyo Shantaay ma jira waxa ugu nasteexeeni Shantayow waxaan kugu naseexeenayaa aayada quraanka ah Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu nooga waramay nin gaala waliba ninkaasi gaalka ah waxa uu sii dheer ilaahnimuu sheegtay waxa uu sii dheer dadku dili jiray ninkaasi wuxuu ahaa nin ilaahnimo sheegtay laba nabi ayuu Allah subhanahu wa ta'ala u diray labada nabi wuxuu yiri كعادة منك وكبريه اذهبا إلى فرعون إنه طغى هارون يا موسى فرعون آذى وكبريه فقولا له قولا لينا مركا أتكتانا هذا الجرعسا كل هذا لعله يتذكر أو يخشى إنه كوان سقاط على غيابه إلهي سبحانه وتعالى وأقيه فرعون إنه النار كواري دونه وما حيصوبته أو قدريه وما حيصوبته إليه أو جرعي هذا اللذا لأن الدعوة أساليب تذا وحي كم التهي إن ضدك هذا الله الله جلعيه أيضا واحد كأركيسان إن إله ما شاكتي ضدك الدلية ظالم أيو الليلية هي هذا الكمرك الله الله إنسان والدعوة الجارسين إنسان سجير عسان ولا الله قف ولا لك ومسلمة سيد الله الله هي من قال الليلية هي أو إله ما شاكت ضدك الدلية سجير عسان ولا الله قف ولا لك ومسلمة سيد الله الله هي سيد جناشة سن حريصة سحكمة يكجرته سيد صماها Shantayow waxaan ka codsanayaa inaad marto culimada wadada ay mareen ha ka leexanin dacwada asaaliibteeda waa lagaaga horeeyay quraanka noo sheegay sunnada noo sheegtay adeero wadada mar waa naseexada koowaad ee aan ku siinayo naseexada labaad qof muslim ha u gafin ha caynin waxay ka mashquulinaysaa ahadiisi iyo aayadihii aad sheegi lahayd qof waxaad waligay ma arkin qof culimo ah oo intuu qof soo qabto 20 daqiiqo ka hadlayo waligay ma arag arab ahaya Soomaa waligay ma arag adi horta qofaad ka hadlaysaa 20 daqiiqo culimada maktabad intay galanay baxthi iyo baaritaan samay jirin laakiin adiga qofaad baaritaan ku sameynaysaa oo 20 daqiiqo ka hadlaysaa oo xadiidkii iyo aayadihii aad sheegi lahaydba qofaad ku mashquushay Shantayow waxa noo sheegtay in Sheekh Umal uu ku soo wacay hadda anaga aqligeena wuxuu noo sheegayaa Sheekh Umal wuxuu ku soo wacay wax kale ma ah inuu ku naseexeeyo وكو عقل عليو ويا أرجنمديسو wax kaaga sheego laakiin saad social media ku soo gashay ilaa hadda waa tahay waxa iska ka bedel ma lahan masaajid ilaahi inaad gasho aad dhahdo balbalaarka xay life waxay ku tiri ma la sadlay hadalka ku hadlaysay balbalaarka xay life waxay ku tiri war hadalka hadal nin weyn ku hadlamaya hadal masaajid laga dhax sheegamaya mid kale masaajid maanta oo dhan laga sheekeenay baabajay iyo dad kale iyo yaani masaajid ilaahi ay waxaan kugu naseexanayaa marka bal masaajidkan ka dhaxbax باش وإسلام تاموكتها markaad guri ku sameynayso iyo masaajid wasta mid kale aqligeena wuxuu noo sheegayaa in dad aynan ku dhageysanaynin wallahi waa dhaare aniga masaajidka igu agdhow hadaad arintan ka sheegi lahayd kuma dhageysteynba laana wax lagu cajisay way wax qof kugu dhageysan karo xigmad lagama helay maanta oo xalay life kan wuxuu ku yiri kana waxay sameysay kan waraxa al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ma waahabe bi qofad caynaysay adeerow dacwada asaaliibteeda mar مساجد كانت كل نحو فوضنا كدا إلهي كياب مدة كله واحد إن بدن كل عليسي وأنا عم بحي دي وحي أورك كوجر عرب كاسوح هذا هلك وحا قاعد إن هدف كوي هي عم بحيتان هدي دعوة إي وحنا يدر إلهي كاتاي هذا الله ضد ضدك ويسامين دجاها مغلي دجاها مركي مغلان قلبي قاسي وجدبي وقفك وسامين هذا دوني هذا الله ضد إني ضدك ساميان رويهين دب إلهيين markaad wax soo gudbinayso dir ilaahay ka ahaadeen wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh